wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkii toddobaadkii geeska Afrika waa anigoo Cabdirasaaq Socoto studio-ga magaalada London Warsan TV barnaamijka toddobaadkii geeska Afrika oo aalabaynu ku soo qaadano dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ka soo cusboonaada gobolada dhaca bariga kii la soo dhaafay ayaa burcadbadeed Soomaaliya ay qafaasheen dad jinsiyadooda ka soo jeeda dalka Germany dadkani oo ahaa dalxiisayaal ayaa ku sugnaa meel ku dhow biyaha Soomaalida burcadbadeedan ayaa sheegtay madax furasho gaaraysa ilaa $1 milyan oo dollarka Mareykanka waxa warbixin dheeraad oo arintaasi ku saabsan inooga soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Jaamac Koosar toddobaadkii hore markii ay burcadbadeed Soomaali ay afduubeen qoys u dhashay dalka Jarmalka oo ay burcadaasi ay ka soo qafaasheen xeebaha dalka Yemen qoyskaasi oo dalxiis halkaasi u tagay kadibna ay soo galeen degmada Laasqore ee gobolka Sanaag ee Somaliland wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya gobolka Sanaag gaar ahaan buuraleyda Calmadow ee degmada Laasqore waxa ay wararkaasi sheegayaan in afduubayaashaasi ay madax furasho gaaraya $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay dalbadeen kadib markii ay la kulmeen odayaal ka tirsan deegaankaasi oo iyagu waan halkaasi ka waday haddaba Warsan TV waxa uu isku dayay inuu xiriir la yeesho wasaaradda arrimaha gudaha balse way noo suurtagal weeday oo saraakiishaasi way ka gaabsadeen ma aha tani tii ugu horeysay ee fal qafaalash ah lagula kaco dad ajnabi ah gudaha Somaliland balse waxa ahayd horaantii sanadkan isla gobolkaasi Sanaag fal afduub ah oo lagula kacay sarkaal Jarmal ah oo hay'adda GAA ka howlgelayay oo markii dambe ciidamada Somaliland oo kaashanaya dadka deegaankaasi ay ku guuleysteen inay ka furtaan afduubayaashii haystay Jaamac Koosar Warsan TV Hargeysa tahay daawadayaal waxa inta noogu eeg barnaamijkeeni toddobaadkii geeska Afrika oo aalabaynu ku soo qaadano waxyaabaha ka soo cusboonaada iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo toddobaadla ah inta ay noogu eegyahay barnaamijkeena intaanu ku kulmayno mid lamid ah oo anigoo Cabdirasaaq Socoto idinkaga tagay inta ayo